السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسان أخيار تهوذي نقا داوانيسا كنا سو دوادا تيفيغا JTN حرنتي سيدحي دالكني كينيا كنا سو دوادا ورركينا تضوادكا oo si toos idin la socodsiinayso anigoo ah Nasteexo Abuukar. Qodobada wararkeen toddobaadka ugu doorkaroon waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho ku dagay dalka Sacuudi Carabiya. nin Falastiini oo dilay 3 askari ah oo u dhashay dalka Israa'iil. shir looga hadlayay arrimaha maaliyadda ee dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Garowe ee Soomaaliya. dadka ku nool magaalada Jowhar ayaa waxa ay sheegeen faa'iidooyinka ay leeyihiin kulumeysiga. barasafka ismaamulka magaalada Gaarisa ayaa soo magacaabay golihiisa wasiirada ee maamulka. intaasi waxay ahaayeen wararkeena ugu doorkaroon haatan ku soo dhawaada warkii oo fidsan. madaxweynaha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho ku tagay dalka Sacuudiga war arrimahaas ku saabsan waxay noo soo diyaarisay wariyaheena Uwax Cabdullaahi. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa magaalada Jidda kula kulmay Boqor Salmaan ibn Cabdicasiis iyo wafdi uu hogaaminayo. madaxweynaha ayaa qada sharaf loogu sameeyay qasriga weyn uu ka degan yahay Boqor Salmaan. dhinaca kale ayaa labada dhinac waxay ka wada hadlayeen sidii xoojinta xiriirka iyo iskaashiga amniga labada dal. madaxweynaha ayaa safarka ku wehelinayay wasiirka arrimaha dibadda Yuusuf Garaad iyo safiirka Soomaaliya u fadhiyo dalkaas Sacuudiga Daahir Geele. weli ma jiraan wax faahfaahin ah oo laga bixiyay kulankani marka laga reebo qoraalada la soo dhigay baraha bulshada sida ay sheegeen sawiraantooda oo lagu faafiyay madaxtooyada Villa Soomaaliya. warkaalada Sacuudiga ayaa waxay warisay in boqorka iyo kulanka madaxweynaha Farmaajo looga hadlayay iskaashiga iyo xoojinta xiriirka labada dal. ilaa iyo hadda lama oga wixii iska bedeli doona kulankaasi hore ugu saabsanaa khilaafka khaliijka ayadoona dawladda Soomaaliya ay hore u sheegtay in ay ka tahay dhexdhexaad arintaasi. shirka wasiirada maaliyadda iyo dawladda xubnaha ka ah maamul goboleedyada dalka ayaa waxay ku furmeen magaalada Garowe ayadoo shirkaasi uu furmay wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya. taageeraan wax badan iraahdo waxa weeyaan mahadnaq inaan u mahadnaqo madaxdii Puntland ee soo dhaweysay maanta aan harsanin inaan iraahdo wad mahadsantiin. haddii ay beedno waxaan rajaynayaa heshiiskan inuu noqdo mid bilaaw ah oo hore noo sii wada oo aanu canshuuro badan mustaqbal ku heshiin haddii ay beedno. waxaan halkaan mahad ballaaran ugu jeedinayaa dowlad goboleedka Puntland iyo shacabkeeda. xaqiiqdii shirkan maanta halkaan aan isugu nimid dabcan markii laga doodo oo wax badan la iska yiraahdo baa natiijada ugu dambaysa soo bixi doonta. waxaan rajaynayaa laakiin inay ka soo bixi doonto natiijo anfici doonta dadka Soomaaliyeed guud ahaan. dadkeenana inta badan kuma fikirayaan in dhaqaale ayaga la soo baxaan. inta badan fikirkoodu wuxuu saaran yahay cid kaalmaysa inay raadiyaan. waxaan ogsoonahay dadkana kaalmaynaya waxay nagu kaalmeynayaan meeshay ka keenayaan iyo inta naga soo gaaraysa intaba. laakiin haddaan ku laabano xoolaheena guryaheena haddaan ku laabano waxaanu heli karnaa wax nagu filan oo uga maarano in nala kaalmeeyo. aniga wasiirku way ugu soo dhaweeyay laakiin aniga maamul goboleedka meelaha ku yimid kala maani galmudug ka imaaday. waxaan isleeyahay marka Puntland galmudug waa saaxiibaana waa isku dhow yihiin deegaan ahaan waa isku dhow yihiin. marka anigana dadka wax ka soo dhaweynaa mar kale wasiirada maaliyadda oo ka imaaday gobolada wasiirka maaliyadda baa wax ka soo dhaweynaya. waxaa mahad iska leh Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa kan isku keenay kalabta wadankan qabow ee nabadu ka jirto ee nabadaysan. Ilaahay baa mahad leh. waxaa kaloo mahad leh dawladda Puntland iyo dadka reer Puntland oo si fiican maanta halkan noogu soo dhaweeyay xukuumaddan oo shacban
aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa shirkani sida odayaashii iga horreeyay sharafta la ay u sheegeen waa shirkeennii labaad intaan xukuumadda aanu ku jiray innaga xaalkeennu waa wax walba layga bixiyo xaalkeennu wax walba layga bixiyo weeye annagu haddaan nahay wasiirada ku shaqada finance-ka maaliyadda waxay nagaga go'an tahay inaan annagu waxa yareeya loo baahanya oo dhan ku filanno haddaan ku filaan weyno anu waxaan ku talinayaa gidigeen meesha inaan iskaga tagno inaan wakti qabsanno weeye wakti aynu qabsanno oon idhaha waktigaa markaan gaadhno administrative cost waxa la idhaha dowladdan inaan ku filaano jeebkeennu ku filaada weeye waana ku filaan karnaa horena waan ugu filaan jirnay iminkana waan ku filaan karnaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan halkan maanta hoolkan quruxda badan leh ee wasaaradda maaliyadda waan idinku hambalyeynaya really kanaa ka qurux badan wasaaradda maaliyadda ee muqdisho kanaa ka qurux badan waan idinku hambalyeynayaa sida wanaagsan ee noo soo dhaweysana waan idinku hambalyeynayaa shaqo fara badan baa inoo taalla borotan baa lagu jiraa ilaahay waxaan ka baryayaa next time halkan aan isugu nimaadno inaan ka hadallo horumarin ka sarreysa budgetkeenna sideen u kabnaa shirkan oo la filayo in la soo gabagabeeyo maalinta berri ah dadka ku nool magaalada Jowhar ayaa si aad u sheegeen inay faa'iidooyin weyn ka helaan ganacsiga kalluumaysiga dadka ka ganacsada suuqa kalluumaysiga ee magaalada Jowhar ayaa waxay yihiin kuwa ka ganacsada kalluunka noocyadiisa kala duwan iyadoo ay sheegeen in ay noloshooda ku maareeyaan haddaba dhalinyarada ka ganacsata suuqa kalluumaysiga ee magaalada Jowhar ayaa waxay ka hadleen hadafkooda ganacsiga ee suuqa kalluumaysiga ee magaalada Jowhar waxaana hadaladooda kamid ahaa sida tan wallahi kalluunka iyo hilibka kalluunka hadda ee dadweynaha xiiseeyaan sida markaas oo caafimaadka hadda oo taamka dadweynaha kalluunka xiiseeyaan waayo waa malaria anaga caafimaad daraan hayso wadanka waa wadan iska dayacan daawo ma haysano laakiin kalluunkaas daawo ka dhiganaa cunista malaayga oo daawo u yahay cudurkaas oo malaariyada tiifooga cudurka oo lafaha galo markaas oo TB-da lafaha ahaanta xilliga malaayga hadda waa xilli oo aad u fiican laakiin xilliyada roobka oo kaleento uu dhibtama malaayga run ahaanta malaayga aad ayaa loo xiiseeyaa hilbaha qaar oo xoolahan uu ka fiican yahay runtii haddii aan kaaga hadlo qalabka aan ku shaqeyno waa hadda qalab aad iyo aad u yar haddii ay jirto hay'ado ama dad oo maalgelin lagu sameey karo oo wax noo qaban karo waa jeclaanahay inay wax noo qabtaan annaga waxaan ka kalluumaysanaa sida hubiga oo kaleentood ama haddii ay baxaan biyo oo xaaf oo hubiga oo ka baxo meel galeen oo kaleento intaasaan ka shaqaysanaa hilibka waxaa loo qaybiyaa labo hilibka gaduudan iyo hilibka cad hilibka gaduudan waxaa ka mid ah sida hilibka xoolaha sida eriga lo'da geela ka mid ah hilibka cas waxaa ka mid ah malaayga waxaa ka mid ah hilibka malaayga ka mid ah hilibka malaayga haddii aan laazimno waxaan ka helnaa waxyaabo oo ka mid ah sida caafimaadka uu ku jiro iodinka iodinka jirka wuxuu u sameynayaa wuxuu anfacayaa gooldarka ama cudurrada ku dhaca mataqaanaa halkan qanjirada marka waxay sameeyaan thyroid gland la yiraahdo thyroidkaas wuxuu anfacayaa haddii qofka uu malaayga laazimo malaaygaas wuxuu ka helayaa wax la yiraahdo barasafka magaalada Garissa ayaa soo magacaabay qaar ka mid ah goolihiisa wasiirada warkaasi waxa inoo faahfaahinaya Muqtaar Xasan Ibrahim magaalada Garissa iyo maamul deegaaneedka Garissa ayaa may si xool linka magacaaya hukuumadda cusub ee Cali Buno Korane iyo toddobaadkana dooratii 7 ka mid 10 xubno ee wasaaradaha kala duwan ee deegaanka matali doona mudane Cali Buno iyo gudbiye shirgudoomiyaha baarlamaanka dawladda hoose ee Garissa mayna intaas ka codsaday in iyo qiimeynka suubiyaan dadweynahana waxaa ay dhici kartaa inay arkayaan inaan daahinay magacyihii la geyn lahaa ama dadkii shaqo la qori lahaa laakiin waad ogtihiin sharci baa waddankan jira sharcigana wuxuu qori dadkan shaqada la qorayo kuwa ugu hore wasiirada ay ka mid yihiin in la geeyo baarlamaanka hoose ee countyda baarlamaankina inta ka hor oo diyaar ma ahayn
shalay baan furnay shalay wixii ka dambeysayna maanta unbay committee hagaajinayaan hadda committee dadkan interview ka qaadi lahayd maadaama committee diyaar ay tahay assembly-gina aan furnay waxaan goostay maanta speaker-gana aan u qoray inaan 3 ruux aan geynay 7 ruux oo aan rabno inay bilaabaan sidii ay interview ku samayn lahaayeen mudane cali bunno korane ayaa sheegay in nidaam sharciyeed ku xuladii xukuumaddiisana aan ahayna mid ay xasho suubadii go'aankan aan gaarnayna waa mid aan ku gaarnay annagoo fiirinayna sharciga wax uu qorayo rag iyo haweenba in shaqo la siiyo annaka waad ogtihiin siyaasigeenna qoys iyo qabiil iyo kama tago taasna waan ayadana waan ku darsannay fikraddii aan dadkan ku soo saarnay marka aqoonta ay leeyihiin cilmiga ay leeyihiin meesha ay ku fiican yihiin waxay qaban karaan intan oo dhan annagoo fiirinayno yaan dadkan soo saarnay si kastaba ahaatee barasaabka yaamay dadweynaha aan ka baaqay ruuxii doodka qaba inay si toos ah mas'uuliyiintaas usa magacaabi inay jeesid karaan doodiyo aqalka baarlamaanka fikradiidoona ka dhiibid karaan 7 geynay 3na way dhiman yihiin chief officersna way soo socdaan marka sharcigana wuxuu qori dadweynaha wixii la sameeyay in la ogeysiyo marka dadweynaha wixii ka qabo wax dad kaleeto aan soo qornay way assembly-gay wixii ay codkooda geysan karaan hogaamiyaha mucaaradka dalkani Kenya ayaa wuxuu ku baaqay maalinta Isniinta in ay qabtaan mudaharaadyo nabadeed warkaasi waxa inoo soo diyaariyay Cabdiwali Raila Odinga ayaa ka dhawaajiyay in maalinta Isniinta guud ahaan dalka lagu qabanayo mudaharaadyo nabadeed oo looga soo horjeedo waxa uu ku tilmaamay dictatornimo ay Jubilee doonayso in ay wadanka dib ugu soo celiso madaxa garabka mucaaradka ayaa halkan ka jeediyay kadib markii uu shir gudoominayay shir ay yeelanayeen xildhibaanada ka soo jeeda urweynaha NASA sidoo kale hadda kadib qasab ma noqon doonto in gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka IEBC uu qareen u yahay ama culumta sharciga uu ku takhasusay maxkamadda ugu sareyso ee dalka ayaana kadib waxa kama jiraan ku tilmaami karin natiijada doorashada iyadoo lagu saleynayo in aan loo hoggaansamin sharci qoran oo la xiriiro doorashooyinka Cabdiwali Maxamuud Qeylaweyne SBTV Hagadheera haatan ku soo dhawaada wararkeena caalamka tilaabooyin goosgoosa ayaa waxaa lagu sameeyay weerarkii ugu dambeeyay ee wadahadalka midowga Yurub iyo dalka UK xoghayaha midowga Yurub ayaa wuxuu ka hadlay dhamaadkii wadahadalkii ugu horeeyay tani iyo markii Theresa May ay ka hadashay Italiya toddobaadkii hore iyada oo sheegtay in UK ay rabto 2 sano oo ku meel gaar ah laakiin wadaxaajood wadamada Yurub iyo Merkel ayaa sheegeen in weli ay jiraan khasaaro weyn oo u dhaxeeyo dhinacyada qaar ka mid ah arrimaha dib u celinta ugu dambeyntii waxa uu sheegay in ay noqon karto toddobaadyo ama bilooyin ka hor in aysan ogolaanaynin in ay u guuraan marxaladda xigta ee wadahadalka ku saabsan xiriirka mustaqbalka qof Falastiini ah oo weerar ku qaaday halka laga galo deegaanka ay sameysteen duleedka magaalada Jerusalem halkaas uu ku dilay 3 nin oo Yahuud ah sidoo kale wuxuu si daran u dhaawacay qof afaraad sida ay sheegeen booliska iyo kooxaha caafimaadka Israa'iil madaxweynaha Yahuudda ayaa sheegay in weerarka cadeen uu u yahay shaqada dhibka badan baadil lahaayeen shacabka intaas ayaan ku soo afmeerinaa wixii war dalka iyo dibadda naga soo gaaray intaan ku kulmi doono wararka xigo aankii dhamaan bahda JTN isku duuban waxa idin kaga tagaynaa sidaas iyo amaana Allah